muslimka ah ama walaalka muslimka ah inaad u duceyso asigoo ka maqan oo meel kale uu joogo inaad u duceyso fadliga iyo wanaagga ay leedahay. maanta muslimiin badan baa xanuunsan, muslimiin badan baa dhibaato haysato, walaalo badan baa dhibaato sheeganayo. ducada maanta aad baa looga baahan yahay in aan isu duceyno, qofkeena maqan inuu u duceeyo walaalihiisa kale. meesha waxaad fahmaysaan qofku u horeeya ee ducada ka faa'iideysanaya ama miraheeda goosanaya waa adiga. mar walba labada ruux kan khayrka ku hormara ayaa horta ilaahay u jecel yahay. taas waa mid. xusuustaad soo xusuusatay walaalka ilaahay dartiina aad u soo xusuusatay waa ajir kale. ducada aad u ducaysay waxay tusinaysaa qalbi wanaagaaga iyo laabtaadu inay furan tahay, xaasid inaadan ahayn. nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay maa min muslimin yadcuu liakhiihi bidahri lghaybi ilaa qaala almalaku walaka bimithli. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma jiro qof muslim ah ma jiro oo u ducaynaayo oo u baryaayo walaalkiisa kale, weliba asigoo ugu ducaynayo maqnaasho. walaalkaa wuu maqan yahay, magaalo kale ayuu jiraa, meel kale ayuu joogaa. adiga intaad soo xasuusatay ayaad ilaahay u barisay, ilaahay aad u tuugtay. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaa malaa'ig ama malagba wuxuu leeyahay adigin waxaa kuu sugnaaday waxaad u tuugtay oo kale aad leedahay. mid kale ilaahay waa aqbalayaa, intaasoo dhan ilaahay wuu aqbalayaa. weliba sida malaga looga aqbalaya ayaa adigana lagaaga aqbalaya. maxaa wacay waa dahrul ghayb. ilaahay dartii unbaad u wadaa waxa kan. ilaahay dartii wixii loo sameeyay ilaahay wuu aqbalaa. fillaah waa kan soo marnay haddaay. lillaah ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lillaah. lilaahi ciyaar ma aha, ilaahay dartee markeed. qofka walaalka ay xanuunsan ama fog ama dhiban ama xiran ama xanuunsan ee adiga aanan ku ogeyn ama dhintayba, markaad ilaahay dartii ugu ducaysid maxaad ka rabtaa? maxaad ka sasabanaysaa? waxba. maxaad helaysaa? waxba ugalama jeedid ilaa waxaad ku raadinay rida ilaahay. waad ku helaysaa, isagana waa loo aqbalayaa. eeg faa'iidada ugu dambaysay kale, adigana malag baa kuu ducaynaya. wax walbo aad ugu ducaysay ayaad leedahay. soo adiga kuu soo noqonaysaa ee badiya ducada oo sujuudda weliba ilaahay baa u dhowaa meesha uu qofka ugu dhow yahay. u badi inta dhimatay iyo inta nool, inta dulman, inta xiran, inta maqan, inta maaragtay de ooyeysee murugaysan, depression stress qabto, ummad waa wada xanuunsan tahay. u ducee. adducaau mukhu lcibaad. mukhu lcibaad waa laf dhabarta cibaadada oo dhan waay. walaalkaa wuu maqan yahay, waxaa laga yaabaa inuu xanuunsan yahay, arrimo kale inay haystaan, dhibaato uu ku sugan yahay. intaad fariisatay baad ilaahay u barisay, markaasaad tiri ilaah walaalkay waxaan si, ilaah waxaan ka dulqaad, ilaah muslimiinta waxaan ka dulqaad. adigana malag baa soo degaay, markaas wuxuu leeyahay malag baa intuu hadlo wuxuu leeyahay adigana waxaa kuu sugnaaday waxaad walaalkaad aad u tuugday oo kale. u ducee, ilaahay wuu ka aqbalayaay. weliba adoona lagu maqlinin habeenkii u ducee. wax walba waad u ducaysid adigana waad helaysaa. soo faa'iidada kuwaad adigaa helaya. ilaahay haydan barakeen. ilaahayna waana jecel yahay runtii. wallahi ilaahay hadduusan jecleen sidaan oo dhan noolama hadleen. oo rasuul nooma soo dirin, oo intaanu cimriga nama siiyan, oo intaanu caafimaada nama siiyan. war ilaahay waana jecel yahay. ilaahay mu'miniin inuu naga dhigay oo islaamka uu nagu duwaa wallahi nagu filan. aynu u ducayno, muslimiinta aynu u ducayno. bal waxaa laga yaabaa ducada aad u tuugtay walaalkaaga in aan laga aqbalin, laakiin malag waa laga aqbalayaa. waayo malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma caasiyaan. laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun. ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa wuu jecel yahay. malag hadduu mar uu kuu tuugo uu kuu baryo waa lagu siinayaa. waa lagu siinayaa. marka aan isu ducayno, bal aan gaaladana u ducayno. allah qaar baa dhahaya sheekhu muxuu leeyahay magaal baa loo duceeyaa. war intuu nool yahay waa loo duceeyaa. gaalka adigaa laguu soo diray, yaad cilmiga u barataa. soo gaal ma aha inaad ku soo hanuunaysid.
هل روح إنه إلهي كوجو هنونيو waxay kaaga khayr badan tahay min xumuri nicam adduun oo dhan bay kaaga khayr badan tahay u ducee oo hanuun ugu ducee ha ilaahu soo hanuuni qoomkayga waxba ma oga kuwaan oo iska xoole ilaahu soo hanuuni hanuun baa laga rabaa inaad adigu ilaahay ka raali ahaadii dhihi maysid aakhiro shuqul kuma laha u duceyn maysid laakiin ku dadaal in aad soo hanuunisid oo aad diinta ugu yeedhid habeen aad u ducid maxaa yeelay xabiibkeena sal slam maalintii oo dhan uu daba socday ilaa ay dhibaan oo ay dilaan wallahi wuu daali jiray wuu ooyn weliba intuu oomo oo uu daalo oo uu arado oo uu gaajoodo ayuu haddana harsan jirin habeenkeena intuu soo istaago ya ayay cagihiisu barari jireen ma waxaa umalaysaa inuu isaga dembi dhaaf weydiisanaya ilaah dembigiisii hore kii dambe waa la dhaafay laakiin muxuu u taagan yahay habeenkii ummadii uu saaka dhan maanta dhan daba socday ee haddana dhibaysay ayuu ilaahay u baryayaa oo uu leeyahay ilaahu qoomkaygaas waxba ma oge ilaahu ii hanuuni ya ilaahu ii hanuuniyo gaalnimaha ku dilin sababtoo ah eeg allah dhahaya falacallaka baaqicun nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa waad ku daashay baa la leeyahay waad ku daashay goor buu kacay mataqaanaa waagii uu jiifay ee uu baqay ee uu go-a isku daday waxyigii bilowgiisii ee la yidhi yaa ayuha almudathir qum faandir istaag ka baxay maxaa isu dadaysaa waqti jiifka waa dhammaaday istaag ma aanu harsanin ilaa 23 sano weeyaan waxaa la dhahayaa waad ku daba daashay waad ka badisay dadaalka sidii la rabay waad dhaafisay raadkoodii waad ku daashay waabad dhiman rabtaa ya waad ku baaba'daa la yiri iyo rumayn la'aanta ay rumayn la'yihiin murug baa maaragtay nafsadaadii way xiiqday waad dhimatay naso ayaa la leeyahay walaalayaal aan u ducayno yani ehledeena qaraabadeena hooyooyinkeena aabiyaasheena gaar ahaan dadka dhintay geeriyooday maanta shay kali ay u baahan yihiin waa ducadeen inaan dhahno ilaahu u dambi dhaaf waalidkeen ilaahu walaalkeena dhintay u dambi dhaaf yani dadka dhintayna aan muhiimadda aan saarno aan ka warqabno mar walba ducadeena aan ku darno annagana waa ka cilaanahay xaalkeenana waad aragtaan annaga waxaan ka bixi la'nahay yaa adduunyo raadis gacantaana wada taaga kursi doon adduunyo doon wax un ma aragtaaye caloosheenna inaan u shaqayna tan un inaan adduunkan aan cuslayno war ilaahay aynu ka cabsano ilaahay aynu ka baqno mar walba allah idin barakeeye intaas ayaanu xalaqada 7 kusoo gabagabaynaynaa intaynu isaga imanayna xalaqada 8. السلام عليكم ورحمة الله.